saakaasi rasmi ah xadhiga uga jireen qayb cusub oo lagu soo kordhiyey cisbitaalka degmada Sheekh. qaybtaas cusub ee lagu soo kordhiyey cisbitaalka degmada Sheekh ayaa ka koobnayd laba qaybood oo aan hore uga shaqayn jirin cisbitaalka guud ee degmada Sheekh. labadaas qaybood ee lagu soo kordhiyey cisbitaalka guud ee degmada Sheekh ayaa kala ah qaybta sawirka lafaha oo ay bulshadu u tagi jireen cisbitaalada kale ee ku yaala gobolada dalkani Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kale qaybta baarista mashiinka uurku jirta. ugu horreynba halkaasi ka hadlay oo warbixin ka siiyey mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay munaasabadaasi xadhigga jarka agaasimaha guud ee cisbitaalka degmada Sheekh Mudane Xamse Maxamed Diiriye iyagoo hadaladana ay uga dambeeyeen maayirkii hore ee degmada Sheekh Ibraahim Cabdullaahi Cabsiye iyo xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada Sheekh Mudane Cabdirasaaq Cabdullaahi Gureed kuna bogaadiyey agaasimaha guud ee cisbitaalka degmada Sheekh dadaalada wax ku oolka ee tan iyo maalintii uu majaraha u qabtay cisbitaalka guud ee degmada Sheekh uu gaarsiiyey waxaana hadaladooda ka mid ahaa Egasmaayir Ibraahim Cabdullaahi Cabsiye adeero runtii halgankii cisbitaalkana qayb ku ahaa dadkii fureen qayb ka ahaa iyo xogayaha degmada Cabdirasaaq iyo maamulka cisbitaalka la joogaba runtii maanta waa maalin farxad leh maadaama ay dib u furnay adeegii X-ray-ga raajada iyo qaybo kale oo cisbitaalka mid ah runtii raajadu baahi weyn baa loo qabay oo waxa weey qofka gacan wax ka noqda inaan si support gareynay mooyaane dee burca ma berberan dirin laakiin maanta insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan u shaqeyno adeegina halkan qofka loogu qabanayo raashidna fariinta u diray waxa weeyaan cisbitaalka adeegyo badan ma ku soo kordhinay shalay markii wasiirku adeegyo badan buu xadhay ka jaray maantana way shaqeeyaan insha Allah adeeganuna wuxuu ka mid noqonayaa adeegyadii hore ee aan soo kordhinayo insha Allah waxa hamiga lagu jiraa ka maamulaha waxa weeyaan inaan cisbitaal dhigayga aan dhaafnaa hadii la yiraahdo waxaan aaminsanahay maanta in cisbitaalka Sheekh boqolkiiba 80 inuu adeegyadii ku furgareenayo baahidii cisbitaalka kale loo tagayna ay yaraatay runtii waxaan moodaa in reer Sheekh imika ay ku soo xulmeen cisbitaalkoodiyo dee baahidii adeegii bay heleen adeeg fiican oo tayo bay heleen shaqaale fiican oo furfuran bay heleen runtii waxaan ku soo gabagabeynay maamulka degmada iyo adeer Ibraahim odayaasha degmada si fiican bay nolol shaqeeyaan waana u mahadnaqayaa waxaan ilaaweyn u shaqaale weynaha cisbitaalka runtii oo dad nafurnimo ku shaqeynaya iyagana waan u duceynayaa sidoo kale waxaan ku soo gabagabeynayaa dawriyaha suxufiga Cabdikariin Ciise Cabdullaahi oo sanad degmada qayb ka ah horumarkeeda وأن فهم بلين إلى مكان أو شيء. بكرة بكرة بكرين وأي كم يجين قيد كشغالها يما بكرة financial كنالو وليس كلام بالي هاي راتي ويسكتي إنه كسو كتبو سيكست بحنا نقطه iyadoo aan waliba runtii wax support oo dhinaca dhaqaalaha aanu haysanin sida cisbitaalka gudihiisa uu dadaalku uu sameeyay ay ku xidhnaayeen taawon ku halbeenaynaa waxaan kaloo ku hambaleynayaa adeegyada uu isku dayayo inuu marba mid soo kordhiyo horumarkuna gradual kaas ayuu ku yimaadaa oo marka in yar la qabto haddana rajadu waxa weeye in mar labaad la qabto la try gareeyo marba waxba la soo yara kordhiyaa mar ma wada yimaado meel adduunka wax li Rome dee maalin lagu ma dhisin Rome was not built in a day maalin lagu ma dhisin horumarku gradual kaas ku yimaadaa tartiib waan ku hambaleynayaa waxaan kaloo ku hambaleynayaa inuu cisbitaalkii mar walba dad laga helayo oo maamulkii qayb ka mid ah haddaan la wada helin qayb ka mid ah laga helayo dhakhaatiirtii laga helayo Allahumma salli ala Muhammad emergency-gii laga helayo taasuna waxay muujinaysaa dadaal badan in meesha loogu jiro iyadoo aanu jirin aan satisfied ahayn shaqaalihii 100% waxaad moodaa inay ku shaqaynayaan tabarro oo ay ku dadaalayaan taana aad baan ugu hambaleynayaa runtii aad iyo aad baan u bogaadinayaa agaasimaha cisbitaalka degmada Sheekh Master Xamse runtii dadaalka fiican uu soo kordhiyay iyo nafurnimada leh runtii muxuu ahaayay maanta cisbitaalka ku soo kordhiyay وانا أديك باهي بدن لو قبل ساو شيء إسماعيل بن عبد الله عبسية أو هل جنتي عسبتك كده فركيسي قيبته أوين كقاطي رنتي صورتك لينا رنتي أختي وما يركها هاي إن عسبتك كان تقبله لافرو وأنا أوفر حد رنتي مانته وجوبتوكا هذا عسبتك تدور سي سمينه وأنا بقعدين يا رنتي دل كان فخر المضله
waynu u baahnayn raajada ama x-raygaas waa adeeg uu cisbitaalka u baahnaa baahi weyn u qabay sida uu ka dhawaajiyena in badan oo la isku dayay runtii in la furo maanta haddii muxuu ahay cisbitaalkii uu soo kordhiyay waan bogaadinayaa waana adeeg magaalooyin kale loo tegi jiray magaaladeenu waxay ku taallaa meelaha ugu badan shilku ka dhaco burburka dadku uu soo gaadho ka soo gaadho dhaawacyada muxuu ahay shilalkaas kala duwan ka dhaca dhaawac qofkii dhaawac qaba oo xaaladdiisu culus tahay baa sawir magaalooyin kale loo geyn jiray runtii in adeegii in cisbitaalka laga helo waan bogaadinayaa insha Allah halkaas looga sii dhawaado oo wixii dadaal kalena ay ku sii daraan rajeynaya cisbitaalka soo duruufo badan oo dalka kala siman yahay ay jiraan iyo kuwa u gaarayba haddana inaan u dhitiin oo adeegyadii maalinta ka dambeysay adeeg cusub soo kordho waan agaasimaha dadaalkiisa muujinaysa runtii iyo isku diirsanaanta shaqaalooyinaha iyo maamulka cisbitaalka halka aynu ka sii dhawaano insha Allah si cisbitaalkeenu u noqdo cisbitaal baahi u adeega dhammaan deegaanada sheekh ku xeeran iyo soo socodka kale ee wadada marka aad iyo aad baan bukaan socodka runtii aad iyo aad baan bogaadinayaa waanan hambalyeynaya insha Allah waxaan bulshadana ku wargelinaynaa inay kala shaqeeyaan wixii karaankooda insha Allah taala Karim Ciise Cabdullaahi telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland